ciidamada Kenya oo sifo sharci darro ku jooga Soomaaliya ayaa dalka soo galay sanadu markii ay ahayd 16 bishii Oktoobar sanadkii 2011. qorshaha ay ciidamada Kenya ku soo galeen Soomaaliya ayaa ahaa kadib markii ay soo daba galeen laba qof oo u dhashay Spain kana shaqeynayay hay'adda samafalka MSF oo Al-Shabaab ay ka soo qafaasheen gudaha Kenya. ciidamada Kenya ayaa gudaha Soomaaliya mar qura la soo galay 25 gaari nooca dagaalka oo qaarkood ay ku xirnaayeen hubka culus. ciidamada Kenya oo shaqo wadaag leeyihiin hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa AMISOM ku biiray 23 bishii Juun sanadkii 2014 kadib markii caalamka uu qayladaan ka keenay xasuuqa ay ka wadeen jubbooyinka. 11 bishii Sebtembar sanadkii 2015 waxa ay Kenya hub iyo sanad military ay ku wareejisay Axmed Madoobe taasoo lagu waday diyaarad nooceedu uu ahaa helicopter iyadoo hubka iyo saanada laga soo raray saldhigga ay ciidamada cirka Kenya ku leeyihiin deegaanka Laikipia ee dalka Kenya. 23 bishii May sanadkii 2016 Axmed Madoobe oo gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya isla markaasina lagu casuumay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa halkaasi ku saxiixay in Kenya ay ka caawin doonto dhoofinta dhuxusha sharci darrada ah, dhismaha xuduud beenaadka, arrimaha muranka badda oo uu qayb ka noqon doono arrimaha siyaasadda ee dawladda dhexe, in amniga jubbooyinka ay u madax banaanaadaan ciidamada Jubbaland iyo kuwa Kenya, in jubbooyinka loo ictibaaro inay raacsan yihiin Kenya, in gacan ku haynta garoomada, dekadaha iyo madaxtooyada Jubbaland looga dambeeyo ciidamada Kenya oo uu maamulo taliyaha sirdoonka ee Kenya. 6 bishii August sanadkii 2016 Axmed Madoobe ayaa loo meelmariyay dhaqaale dhan 500 oo bil kasta ah taasoo qayb ka mid ah lagu caawinayo horjoogayaal ka tirsan Al-Shabaab oo wada shaqeyn dawlad leh Axmed Madoobe kuwaas oo la wadaaga macluumaadka weerarada iyo dhaqdhaqaaqa. 10 bishii July sanadkii 2017 madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa Axmed Madoobe la wadaagay dhambaal la xiriira in sanadkiiba la siin doono 1 milyan iyo bar oo ka mid noqon doonta dhaqaalaha ka soo xarooda dhoofinta dhuxusha oo laga helo faa'iido dhan 15 milyan oo dollar sanadkiiba. 26 bishii February sanadkii 2018 Axmed Madoobe waxa uu Kismaayo ka diiwaan geliyay ciidamo dharcad ah kuwaas oo si gaar ah ugu shaqeynaya Kenya. 21 bishii December sanadkii 2018 wafdi saraakiila oo ka socday dawladda Kenya isla markaasina tagay madaxtooyada Kismaayo ayaa Axmed Madoobe siiyay amar la xiriira in ciidamada taabacsan dawladda federaalka Soomaaliya laga saaro gabi ahaanba jubbooyinka. hase yeeshee taasi ma suurtoobin oo waxa uu culays uu ka furay dhanka dawladda federaalka Soomaaliya. 13 bishii July sanadkii 2019 dawladda federaalka Soomaaliya oo isticmaalaysa xogo sirdoon ayaa fashilisay 3 weerar oo Axmed Madoobe iyo Kenya ay u qorsheeyeen xerooyinka ciidamada dawladda ee ku yaala jubbooyinka taasoo ujeedka uu ahaa in la niyad jabiyo. 2 bishii May sanadkii 2020 Axmed Madoobe waxa uu dhaqan geliyay heshiiska kala dhaxeeyay dawladda Kenya ee lagu diidayay ciidamada hubeysan ee dawladda federaalka ay geysay gobolka Gedo. waxa uuna caalamka ugu baaqay in ciidamada laga saaro gobolka Gedo. su'aasha waxa ay tahay muxuu Axmed Madoobe u diidan yahay ciidamada qaranka isla markaasina uu u soo dhaweysanaya ciidamada Kenya? maxay tahay sababta Axmed Madoobe uu ciidamada xoogga u rabo in laga saaro gobolka Gedo kuwa Al-Shabaab ee 7 kiiloomitir u jira Kismaayana loogu daawanaya? maxay tahay sababta kooxda Al-Shabaab ay ugu badan yihiin Jubbaland? maxay tahay sababta uu Axmed Madoobe u joojiyaa howlgal kasta oo lagu qaadi lahaa Al-Shabaab?